wasiiru dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa gaaray deegaanka Coodan loo ka tirsan degmada Qorilugu ee gobolka Buuhoodle. bulshada ku dhaqan deegaankaasi ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay mas'uuliyiintani waxayna lulayeen calanka xisbiga kulmiye. mas'uuliyiintan ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo taageero lagu muujinayay xisbul xaakimka talada dalka ee kulmiye. xubno isugu jira salaadiin odayaal dhalinyaro iyo abwaano ayaa goobtaasi ka hadlay waxayna sheegeen inay ahaayeen xisbiga kulmiye tan iyo aasaas haatan ay la garab taagan yihiin cududooda taageero. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa sidan kalgacal kale ee deegaankan Coodan leh isagoo lagu ogaa inuu yahay xisbiga kulmiye oo hore loogu yaqaanay maantana ay xafladan iyagu qabteen oo ugu yeedheen madaxda xisbiga iyo wasiirada xisbigeeni deecaha weligeen baaynu ahay xisbigu waxa weeye kulmiye waynu ahay reer Coodalow weligeen ba kulmiyeynu ahay maantana waynu nahay magaalada waad aragtaan waa kulmiye weligayna kulmiyaanu ahayn sida aanu ugu heeganahay xisbigu waa inuu noo soo gaaraa waxtarkiisu kulmiye bedelaya insha Allah dhibaato dambe iyo hawl dambena ma jirayso ala Coodanle waan soo dhaweynaa xisbiga kulmiye iyo waana nahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer waan soo dhaweynaa maxaan ku raadaaye wasiirka waan soo dhaweynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Xasan Mataan iyo wasiiru dawlaha xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdirashiid Yaraac oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa hadallo isugu jira dardaaran iyo mahadnaq u soo jeediyay bulshada deegaankani. haweenka iyo deegaankan Coodanle markasta wuxuu ka mid yahay deegaamada waaweyn ee gobolka Togdheer ama degmada Buuhoodle ka mid yahay waa deegaan markasta abaabulan waa deegaan markasta danaha ummadda iyo danaha xisbiga iyo danaha bulshada intaba u diyaara waxaynu isku ognahay kaadhadhkiin inuu qof walba kaadhkiisa meel ku ogaado siduu ugu codeeyo maalinta codka u bixinayo siduu codka ugu rido haddaynan kaadhadhkeenni meel ku ogayn cid waxba ma tarayno xisbigeennuna ma soo saari karayno haddaynan kaadhadhkeenna meel ku ogayn. mahadnaqaynaa runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa xafladan qiimaha leh ee aad qabsateen ee annagana naga codsateen inaad kala soo qayb galno aad baannu ugu faraxsannahay. waxaa kale oo runtii aannu aad ugu faraxsannahay taageerada iyo cududda aad cusboonaysiiseen awalbadda kulmiye waa ahaydeen laakiin cusboonaysiin ayaa muujiseen maanta inaydaan wax idin soo dhex galay aanay jirin ee halkiinnii taageeradii ka haysaan. waxqabadkii Coodanle u baahnaa lama dhammaystirin laakiin waxbaa la qabtay runtii mugle baa la qabtay waxaynu laakiin isweydiinaynaa waxqabadkaa goormaa la qabtay waxaa la qabtay intii xirsi ka dambaysay ninka maanta codkaydii ka doonaya 5 sannadood buu haystay dalka riig lama qodin xanaano lama dhisin saldhig lama dhisin 5tii sannadood ee uu dalka hoggaankiisa ka midka ahaa ee awoodda ku lahaa Coodanle wuxuu u qaban waayay maantaan u qaban doona dee waa cay ayaan la Cabdilaahi TV-ga caalamiga SBC magaalada Burco.